السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا سو دوادا meel kastoo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada warbixinadii iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiibayaal kooxda kubadda cagta Manchester United oo soo garaacday Real Sociedad balse loo diiday kaalinta koowaad inay ka soo muuqato waa kooxda lagu magacaabo Real Madrid ee ku ciyaarta garoonka lagu magacaabo Maslaxa Riyada saaxiibayaal waxaa war degdeg soo saaray Gerard Piqué oo muuqaal qiiro leh kaga fariistay kubadda cagta xilli uu xabaalaha muslimiinta qorayo oo laacibkii daafici khabiirka ahaa daafici kalsoonida badnaa ee kooxda Barcelona laacibka reer Spain ee lagu magacaabo Gerard Piqué ayaana ku dhawaaqay inuu gabi ahaanba kabaha tirin doono kulanka soo socda ee la dheelayso kooxda kubadda cagta Barcelona marka saaxiib yaal laacibkan wuxuu sheegay in gabi ahaanba qarankan hore uga fariistay hadirna kooxda Barcelona uu soo gabagabeeyay waayaheedii kubadda cagtana uu sidaas ku soo gabeeyay waa laacibka lagu magacaabo Gerard Piqué saaxiib waxaan hadii aad tahay saaxiib ku cusub barteenan fadlan subscribe like share ugu dhiirigelay waa ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga kooxda kubadda cagta lagu magacaabo Manchester United ayaa boqotay dalka Spain kooxda lagu magacaabo Real Sociedad kulankan ayaa waxa uu darnaa in Manchester United kulankii Real Sociedad iyo Manchester ee koowaad ee ka dhacay Old Trafford in kooxda kubadda cagta Real Sociedad ay guul ku soo gaadhay hal eber waxaana saaxiibayaal Manchester United u tagtay dalka Spain inay soo argoosato in kana soo muuqato kaalinta koowaad ee groupkooda laakiin taas ma dhicin waxa u qabsamay Manchester United oo inay guul gaadhay laakiin waxa laga hor istaagay inay kaalinta koowaad ku soo baxdo waxaana intaas mid la mid ah sameysay Real Sociedad ayaa kulankan waxay ku soo gashay si difaac ah oo ay rabtay in kooxda Manchester United aysan kaalinta koowaad ee groupka u dhaadhicin laakiin wax weerar ah oo halis ama qaadin kooxda Real Sociedad laakiin waxa moosaa kooxda kubadda cagta Manchester United oo kulanka maamuleysay maadaama ay filisay ama ay rajaynaysay oo ay garoon ku soo gashay inay gool badan oo 5 ilaa 4 gaaraya ay kaga bayso kooxda reer Spain oo ay dardar xool ku soo gashay waxaana saaxiibayaal weerar kale joogsi aan lahayn qaaday wiilasha ama xirta Ten Hag waxaana ay sameeyeen hal gool oo qura wax gool oo kale way awood waayeen naadiga lagu magacaabo Manchester United kulankan ayaana waxa uu ka tirsanaa Euro League kulankana waxa ku samaday hal eber Manchester Unitedna waxay ku dhameysatay booska labaad ee groupka marka saaxiibayaal kulankan waxa ku aad xamaas badan waxaad moodaysaa in awoodda Manchester United ay waayahan si fiican u soo hagayso maadaama ognahay in Real Sociedad ku qaraacday gurigeeda awoodna iyo weerarna dhagaha ku dhufatay kooxda lagu magacaabo Real Madrid ama shaadinta asaas ay hadana intay gurigooda uga tagtay argoosi sax ah oo intii la marsiyay oo kale marsisay kooxda lagu magacaabo Real Sociedad saaxiibayaal waxa la sheegay saaxiibayaal in khabiirka weynaa ee daafaca Barcelona iyo xulka Spain Gerard Piqué uu iska fariisanay ciyaaraha maxaa sababay in uu xilligan ka fariisto ciyaaraha asagoo 35 jir ah laacibka reer Spain ee lagu magacaabo Gerard Piqué daafaca kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa muuqaal qiiro leh oo uu soo duubay ku shaaciyay inuu kaga fariisan doono gabi ahaanba kubadda cagta kadib 14 sanadood uu ka tirsanaa kooxda koowaad ee Barcelona iyo sanado kooban uu ka ciyaarayay dalka Ingiriiska ee kooxda kubadda cagta Manchester United Gerard Piqué ayaa waxa uu muuqaalkiisa ku sheegay in la gaaray waqtigii uu tiirin lahaa kabaha kubadda cagta isla markaana kulankiisii ugu dambeeyay uu noqon doono midka ay Sabtida Almeria ay ku martan gelin doonaan Camp Nou ayuu noqon doonaa kulanka ugu dambeeya ee kubadda cagta uu ciyaarayo laacibka lagu magacaabo Gerard Piqué muuqaalkan labada daqiiqad soconayay ayaa waxa kale oo Gerard Piqué ku soo bandhigay sida uu ahaa waqtigiisii Barcelona tan iyo markii uu kaga soo biiray Manchester United 2008 isaga oo horay da'yaraan uga tagay La Masia
kuna biiray garoonka lagu magacaabo Old Trafford aaday sanadkii 2004 ilaa 2008 oo uu dib ugu soo laabtay kooxda uu kuliyada ka soo baxay ee Barcelona. 30 jirkan ayaa Barcelona u saftay in ka badan 600 oo ciyaarood oo kooxda koowaad ah, waxaana uu ka mid yahay ciyaartooyda ugu waqtiga dheer isaga oo muddadaasi kula guuleystay 31 gool oo ay ka jiraan 4 champion 8 horyaal iyo koob kale oo maxalli ah. waa laacibka lagu magacaabo Gerard Piqué oo waqti badan ku soo qaatay kooxda kubadda cagta Barcelona. waxa ognahay saaxiibyaal inuu laacibkan ahaa laacib waqti badan ku soo bilaabanayay safka koobaad ee kooxda Barcelona gaar ahaan santarka daafaca, maadaama uu ahaa laacib aad u kalsooni badan, yuusan tabar darnayn, yuusan macnaha daafacasho badan, laakiin laacibkan waxa lagu watay nin laacib aad u kalsooni badan oo laga bartay laacibka lagu magacaabo Gerard Piqué. Gerard Piqué ayaa horaantii sanadkii 2018 markii laga soo laabtay koobka adduunka iska fariistay macnaha xulkiisa Spain inuu ciyaaro. haddana waxaa la jeenayaa kulanka ay Almeria la dheeriyaan inay ka fariisan doono kooxda kubadda cagta Barcelona. waxaana sheegay in la diyaarin doono qabanqaabada iyo xalfadda lagu sagootinayo laacibka khabiirka ah, laacibka waqtiga dheer kusoo jiray kubadda cagta Gerard Piqué uu gabi ahaanba tiirin doono kabaha kubadda cagta. saaxiibayaal wararkeena subaxnimo ee ku saabsanaa Gerard Piqué iyo Manchester United intaas ayuu noo eegyahay. haddii aad tahay saaxiibka cusub barteenana fadlan subscribe noo saar, like ta iyo share ta nagu dhiirigeli, waana ku mahadsantahay saaxiib la jaanqaadkaaga.